anigu waxa weeye waxaan isiri wanaagii waxa aad adeegsatay xaqii warbaahinta marka isbedelkaygu waxaan culays ka saaray inaan wax ku bedelo warbaahinta inaan wax ku hagaajiyo warbaahinta marka runtii damac siyaasadeed yani marxaladan aan joogo runtii kuma jiro baan ku sheegay wallahi fursado badan baan helay aan awoodi karayo inaan meelo kala duwan inaan xil ka qabto xaqiiqatan nabadgelyada naxariista iyo barakooyinkiisu ha idin ahaadeen kuna soo dhawaada barnaamij kooban oo aanu ku waraysan doono wariye Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo ku caanbaxay barnaamijka samafalka ee kaalmee kuwan haddaba ugu horeyn waa kuma Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon bismillaahir rahmaanir rahiim waad ma satahay dhamaantiin inta daawanaysan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon ayaa magacayga la yiraahdaa waxaan ahay reebro waxaan ahay muslim waxaan ka hawlgalaa warbaahinta waxaan isku dayaa inaan iftiimiyo arrimo aanu arko inay u baahan tahay in la iftiimiyo Cabdimaalik waxa uu ka hadlay booqashada uu ugu jooga dalka Qatar iyo soo dhaweynta uu kala kulmay Soomaalida ku dhaqan runtii waxaan u imi Soomaali yani kama had sheeganaysa Qatar ku nool nolol karaama leh cizi iyo sharaf leh cunaya dhaxalkii awooyaashood Soomaalida halkan joogtay muru'ada iyo sharafta lahayd iyo karaamada lahayd sifooyinka wanaagsan lahayd dhaxalkii Soomaali maanta isticmaalaysa ayaan u imi iyaguna isku dayay inay ilaaliyaan dhaxalkaas marka waxa weeye runtii waxa weeye dadka Soomaalida halkan jooga yani runtii wax cabasha iyo dhibaato kuma arag waxay ay sheegeen inay joogan dhulkoodii inay dalkoodii ay joogan insha Allah waxa weeye adduunyadu waa sagaal insha Allah Ilaahay waxa weeye wixii ka dhimanna yani ha u dhameystiro waliba yani runtii dalkan Qatar waxa weeye dal la go'doomiyay Soomaaliduna runtii waxay u muujisay inay garabkooda yihiin runtii waxa weeye qof kasta oo xor ah caalamka jooga ma jecla in ummad meel lagu go'doomiyo xaqiiqatan iyagoo go'doon kale ayay dalkii uu jiraa uu shaqeynaya yani noloshiisuna way socotaa Soomaalida halkan joogta Axmed waxa weeye si wacan bay noo soo dhaweeyeen gobonimo leh bay noo soo dhaweeyeen runtii waxa weeye qaybaha kala duwan ee bulshada halkan joogta aad bay u shaqeeyeen laakiin bal inta marba jaanis ka haysata ayaanu la kulanaa oo aanu isweydaarsanaa u waranaa yani noo warama waqti fiican ma runtii ku qaadanayna Qatar waxyaabaha runtii aan arkay waxa weeye waxay xasuusiyeen dhulkayga bay xasuusiyeen waxaana dhulkaygii runtii qoladan iyaga laftooda horumar bay walaaladay Qatar ay ku talaabsanayaan waxaan la jeclaaday horumarka inuu dhulkayga ka socdo dhulkayga waxa xasuusanaya in inuu horumaro waxaan dareemayaa dhulkaygii inay macdan badan shidaal badan saliid badan ay ku aasan tahay oo ay tahay inaynu soo saarano aqoon u barano aynu la soo baxno si ay dadku ay uga baxaan qurba tagista iyo kadeedka iyo nolol badan oo ay Soomaalidu ay cabanaysay oo ay lahayd waxa weeye ilaa iyo goorma ayaan ku jireynaa waanu imtixaamanahay yani waxa weeye Ilaahay aynu soo noqono insha Allah khayraadka uu inaga arsaaqaya dhulkeena intii uu waday barnaamijka kaalmee kuwan waxa uu bulshada u soo bandhigay oo la gacan qabtay dad dan yar ah oo duruufo kala duwan ay haysteen haddaba maxaa kamid ah qisooyinkii murugada iyo xasuusta ku reebay waxa weeye runtii qisooyin badan baa jira aad bay u badnaayeen intooda badan waxa weeye dareen bay lahaayeen xaqiiqatan dad ilmeynayaan la kulanay yani kameradeedu waxay qabatay markii hore dad aan si caadi ah si aan u wada sheekaysanay ilmeynaya oo ka ilmeysiinaya ku murugo galnay tiraanya ku galinaya waxaan baranay runtii waxyaabaha runtii dad u sameeya xanuuno badan oo adag xanuunka kasarka dad jirkooda googaayaan oo daadanayaan oo arkayno hooyo imika geeriyotay Ilaahay ha u naxariistay cibaadada Daawud loo jiray oo tiibalafood oo ku dhacaysa filayo jirkeeda isku laalaamay
iminka sanadii dheeraad bay sii mootan tahay ilaahay u naxariisto hooyadaasi waxay ahayd qisooyinkii runtii ku cibro qaadashada ahaa ee aan muxuu la kulannay may calfan dhaqaale badan oo muxuu loo ururiyey caafimaad islaha muxuu ku hesho laakiin waa la dhaxlay ilaahay u naxariisto hooyadaas waxa kale oo aan muxuu xasuusta ayaan nuur axmed oo inan guri ku jirtay reer Burca oo muxuu xanuunka HIV gu hayay oo duruufaysneed oo aan haysan kiradii guriga laakiin kadib way ilmeenaysay intaanan kadib galin way ilmeenaysay way murugaysnayd way warwarsanayd kadibna ilaahay waxa weeye albaabadii khayrka ayuu furay way badhaadhay iyadii baa guriga iibsatay iyadii maxay nolosheedu hagaagtay iyadii dadkii tolkeeda iyo ehelkeeda maxay dib u caawisay runtii waxa weeye dad badan baa maxay geeriyooday qisaskiina soo maray dad ilmeynaya dad abaaraysan dad masaakiin oo runtii aan miyada ugu tagnay ay way badnaayeen xaqiiqatan maxay Axmedu waxaa jira dalal ku yaala dhul saxaraa haddana isku hawlay inay dhulkooda ku beeraan dhir kuna daryeelaan taasi oo qayb ka ah bilicda deegaanka halka dalkeena oo ka mid ah meelaha ugu cimilada wanaagsan dunida ay dadkiisu dhirtii oo alle ku manaystay gubayaan sidee u arkaa arrintaasi Cabdimaalik Coldoon wallahi runtii waxay u baahan tahay deegaanka in la ilaaliyo waxay u baahan tahay runtii dadku haday qurbaha soo mari lahaayeen way qurbaha arki lahaayeen waxa weeye dalkooda jeclaan lahayn xaqiiqatan waxaad ogaanaysaa nicamka yaala dhulkeeni inaanu dalal badan oo lin xaqiiqatan waxyaabo badan baynu haysanaa xeebada dheer baynu haysanaa waxaynu haysanaa xoolaynu haysanaa dhul ku haboon beerahaynu haysanaa macdan badan baa ku duugan dhulkii khayraadkaas oo dawladuhu qani ku noqdaan ayaynu haysanaa dawlad qaniyaynu nahay صراحة yani dhulka Soomaalidu waxa weeye waa ard qaniya waa ard hodana marka waxa weeye dhulkaas in loo fakaro sidii maxaa loo horumarin lahaa loo soo jeesto yani صراحة waxa weeye way ku dambaynaysaa dhulkeena ayay ku dambaynaysaa aakhirkii maxay Carabi cajamba ay iman doonaan oo ay khayraadka inala wadaagi doonaan oo ay u soo shaqo tagi doonaan saynu maanta aynu ula joogno aynu u soo shaqo tagin waxa weeye runtii waxaynu haysanaa saad sheegtay yani bi'ad deegaan la garaacayo la ololinayo la baabiinayo oo lala dagaalamayo duurjoogtiyo muxuu la iib geynayo dhirtii oo yani aan loo naxariisanin dhirtii qoyanayd oo la gubayo oo xaaluf keenayo oo ay meeshii saxaroobayso uu tasaxur ku dhacayo runtii waxa soo dhan waxa weeye uu si baabiinay xaqiiqatan anoo yar waxaan xasuustaa yani muddo dheer miyiga marka la isaaro kayma jiray dhul ajaayiba jiray aan imika waayay isla deegaamadii baan tagay meeshii saxara noqotay oo meel aan la harsado oo aan fiicnayn jirin waxaan anigu garanayaa yaraantii meel jiqa oo ay oo kayma oo yaab leh oo imika filmaanta ku aragno kayma yani muxuu qaar khatar istiwa meelaha u maro kale ayaa ahaan jiray dhulkeena ahaan jiray imika wixii way isbedeleen marka waxaan leenahay war dhulkan u tudha waad aragtaan waxa weeye dadkani muxuu waxa weeye yani say ka dhigeen dhulkoodii waxay ka faa'iideysanayaan bi'adu iyadoo aan arrimo badan oo ay muxuu runtii inagu aynu ku fiicanahay jirto haddana dhulkoodii bay ka faa'iideysanayaan dhulkoodii bay beerayaan yani ay ka dhigayaan meel ku haboon beeraha bilic bay soo saarayaan goob loo soo dalxiiso ayay ka dhigayaan Soomaalidu waa dad ku wanaagsan martisoorka iyo soo dhaweynta Cabdimaalik waxa uu booqasho ku tagay magaalooyin kala duwan muxuu bulshada kala kulmaa mase jira qorshe ku aadan inuu booqdo goobo kale Soomaalidu waxaan ugu tagay Soomaaliis jecel kalgacayl ka dhaxeeyo walaaltinimo ka dhaxayso runtii waxa weeye dadka la kulmay yani waxa weeye dad walaala runtii Soomaalidu meel kasta ay joogtana waxa weeye way iska xigaan way ka duwan yihiin runtii caalamka way ka duwan yihiin bal soonaysaa sababtoo waxa weeye dadkii adduunku imika isma naxariistaan qof kastaaba nafsi yani waxa weeye naadarka iyo ilmaabtiyo habarwadaagiyo waxaan inagu ma ka sheekayna cid isugu joojisa ma jirto inagu laakiin waxa weeye naadir shanaad naadir lixaad tobnaad reer hebel baynu isku nahay isku deeg magaalaynu nahay isku muxuu ahaay jihaynu yani waxyaabo badan baa muxuu la isku soo dhaweynaya Soomaalinimo la isku soo dhaweynaya kaliya
soomaalinimo ayaa la isku soo dhaweynaya mujarrad soomaali ma tahay waxa weeye ahlan sahlan fawqa ar-ras marka runtii dad saasa oo isku xidhan baynu marka wanaag baan kala kulmay wanaagaas ilaahay muxuu ahay Soomaaliya ku dhameystiro wixii dhacay tagayna ilaahay ha ilowsiyo muslimiin badan baa dhexdooda dhibaato martay iyagana muxuu ahay insha Allah ilaahay ha ka bugsiyo oo dareemayna in muxuu ahay khaladaad ay isku sameeyaan waan dareemayna Soomaaliya runtii wixii halaagay dulmi ay barkeed barka kale iska gashay laakiin imika waxa weeye aynu ilowno oo dadkii runtii in badan oo kamid way ilaaween qaar baa isku dayay marka qaarkood inay maadiga dadka xasuusiyaan maadigaas waxa weeye islaam baynu nahay islaamnimaduna muxuu ahay waxayna baraysaa inay dadku ay walaaloobaan oo leelaawo wixii hore si mujtamac isku xidhan oo mutamaasika oo yani cadow kale ayuu leeyahay iska celiya cadowga kale ayaa loo carbiyaa muxuu ahay mujtamaca muslimka marka Soomaaliya runtii yani wanaag badan baa kala kulmay soo dhaweyn baan kala kulmay gobonnimo baan kala kulmay xaqiiqatan goob kasta aan tagno waxa weeye nagu soo dhaweynayeen meelo badan baan noo haray oo runtii aanan wali booqan yani sabab badan ay jiraan oo aanan u booqan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu booqano deegaamada kale haddii aynu jilacno dhinaca suugaanta Cabdimaalig waa hal abuur wuxuuna suugaanta ku curiyaa luqadaha Soomaaliga iyo Carabiga goormee ayuu bilaabay oo dareemay inuu curin karo suugaanta waniyo waxaan anigu xasuustaa anigoo 20 sano ka soo wareegay xaqiiqatan markii aan bilaabay suugaan inaan qoro inaan maahay adabka qoro guud ahaan ama qisas ama ashcaar inaan qoro sheekooyin iyo gabayo bil carabi baan ku qori jiray anoo Yemen jooga anuu ilaa iyo hadda ma aamisani inaan maahay bahda suugaanta kamid ahay laakiin waxaan islaamin min huwa dadka jecel inay suugaanta qoraan ayaan isku tiriyaa marka waxa weeye markaasaan maahay bilaabay barigaas ayaan maahay bilaabay carabi baan maahay runtii uu ku bilaabmay ilaa ay imika carabiga maahay waan xiiseeyaa fursad baaban helay qatar inta joogay in maahay dib wax u sameeyo waxaa jirta hees ku caan baxday imeermeeri oo Cabdimaalig uu sameeyay haddaba maxay tahay qisada ka dambaysa heestaasi ee ay ku timid imeermeeri waa hees aan sameeyay oo bila musiga laxanka una saaray imeermeeri waxay ka sheekeynaysaa qisad jacayl bay ka hadlaysaa qisada jacaylka oo maahay ay meermeerintu ku badatay laablaabku ku batay oo soo noqnoqo sii soco waxaan dhamaanay madadaalis imeermeeri bimaana waadi meermeerisay anigana imeermeeri wuxuu leeyahay yani waadi meermeerisay anigana waadi madadaalis markasta ma saasadii ma weelisay oo bimaana waxba kaamana soo naasacada oo ay dhabi yani wax dhawa ma jirto marka runtii qisa maxay ku timi qisadaasina waxay ahayd qisa runtii yani maxay ereyadeeda laga akhrisanayo xaalkeeda marka waa heesta aad maqasheen ee ahayd anigana imeermeeri waliga imadadaali markastaba imaaweli waxamankayga buuxa maskaxdayda miranaya murugada jacaylkaaga malmaha adduunkeenu waa miradha tira kooban marun soo dhammaanaya madmalmo ilaa joogtid midhahayga la xamaysad ha noqdaan macaan heese imeermeeri intaas ma ka soo qaadanaya dad badan ayaa Cabdimaalig ku dhaliila inuu ka soo horjeedo Somaliland oo deegaan ahaan uu ka soo jeedo iyadoona horay uu suugaan kala duwan ugu amaanay haddaba muxuu yahay mowqifkiisa ku aadan arrinta Somaliland runtii Somaliland iyo dhul Soomaaliyeed iyo cid Soomaali ah oo aan duulaan ku ahay ma jirto kaliya anigu waxaan ka soo horjeedaa dadka dulmiga geysanaya ee dadkooda laynaya ee faragelinaya Soomaalida kale waxaan ka soo horjeedaa Cabdi Ilay iyo kooxdiisa kuwan ka soo horjeeda kuwan u jeedana waa kuwa iyo cid kasta oo la shaqeysa qof kasta oo la shaqeeya oo Soomaaliya oo aan dareemo inuu la shaqeynayo laakiin ka dawlad ahaan ka shacab ahaan Somaliland ma runtii kama soo horjeedo nin dulmiga diidan u baanahay dulmiga nacab yani waxa weeye gobonnimada jecel xaqiiqatan qofka Somaliland runtii ka soo horjeeda yani wuxuu dayn lahaa
muu yidhaahdeen baa dhibtaasaa somalilan ku soo socotay ha laga qabto muu yidhaahdeen waxa weeye wuu aamusi lahaa oo yani shirqoollada aan ka sheekeeyo loo maleegayaba muxuu ahay ka aamusi lahaa ka dhici lahaa odhan lahaa muxuu ahay yani ha wareegta giraantu muxuu ahay habarba iska hawle heellada inoo tuma ayaan odhan lahaa waxa weeye yani muxuu ahay ka labarara xagga doontaan baan odhan lahaa laakiin xaqiiqatan somalilan yani arrimo badan oo runtii aan ku taageerayna ayaa jirta ma garanayo Soomaaliya sidaan uga soo horjeedi karaa yani deegaankaygii dhulkaygii yani aan intaasoo sano aan joogay ku barbaaray yani wax ku noqday aan ma garanayo qofku yani meesha waan ka guuri lahaa nihaayiyan intaan ka guuro ayaan meel kale degi lahaa markaasaan yani aan halkaa waxaan doona ka soo samayn lahaa laakiin meel aanan ka guurin oo aanan ka goosgoosan oo aanan kaba tegin ma garanayo waxaan uga soo horjeedayo يعني تيدا لبعضنا أحمدو يعني ها حكومتها كلا دونا إيمانا يوان دليلي كلا سيدا الشعب كله مواطن بان هاي رئيس سوماليلان حق وحن لا هاي حقوق إليه المواطنين تو ويدليلان أو صفة الحنبال أركيسا ورباهين تو عايسا مدح وأنا أقول سيدا قاب كان قاومبا يعني وما عاي تمام ظلمي هلا دايو أيان هذا يعني فرقلت أنا لك دايو بان هذا لكن قابك أو قاونا حتى لو عيتمو حقيقة أنا أقول ما عيتمو وحن كم بده هاي مواطنين تاس وحن لا هاي حقوق ده وحن سيدا أي وحول دليل بان أنا أقول دليل أو حكومة دو وهوي وموظفين وشغالة يعني محمد الله دورتي هوشا سال الله إجمضي كلية يعني وانا تجين إيجا الصوماليلان لما يراد هذا إيجا كسور تيدو إيجا الصوماليلان معها somalilan iyaga maaha waxa weeye هناك فرق waxa weeye xukuumadda kala duwan baa tagay somalilan way joogtay marka waxa weeye waxaan jecelahay jiritaankeeda waxaan jecelahay horumarkeeda waxaan jecelahay inay wax noqoto yani runtii waxa baan u sameeyay suugaan baan u sameeyay heesaan u sameeyay taqaariir baan u sameeyay aan ku bariyay caalamka somalilan runtii yani waxaan u arkayaa dulmi baan u arkayaa xaqiiqatan la yiraahdo somalilan ma ka soo horjeeda xadgudub baan xaqiiqatan u arkaa dulmiga weyn ay hadii ay la rumaysto hadii la igula kaco waxa weeye dulmi baan u arkaa waxaan leeyahay wadankayga xoog baan xeelaad u jecelahay laygama xigsanayo xijir baan u qubaya ayaan hore u yiri waxa sameynaya dacaayadaas nimankan u sahaynay Axmed xaqiiqatan waxa weeye in yar hadaan ka maqnaada Somaliland wallahi si aan caadi ahayn baan ugu xiisoodaa waa meesha aan ugu jecelahay inaan ku noolaado ilaahayna wuu arkaa inaan jecelahay ilaahayna wuu arkaa inaanan maxay ka soo horjeedin shacabkayga reer Somaliland waxaan idin leeyahay wadi jecelahay aad iyo aad baan idin jecelahay iyo dhageysta kulan la kala duwan waan idin la yeelanayaa waa wada fadhiisanaynaa waxyaabo badan baan runtii idin tusaya inaan maxay Somaliland aanan nacbayn waxaan idin xasuusinayaa barnaamijkii kaalmee kuwan yani dadka aniga ilaah aad arkaysaan meelaha ka qeylay Somaliland Cabdi ka soo horjeeda umay qaban umay kamay shaqayn waxyaabihi aanu qabanay aniga iyo asxaabteeda iyo waxyaabihi dadkii kala duwanaa ee aanu fidinay gurmadka yani dad inaga mida oo yani laga yaaba qofkan igu dhaliilaya ee Somaliland cadawgeeda tahay waxa laga yaaba dadka aan kaalmeynay ee aan ummadda u soo bandhignay ee guriyaha loo dhisay ee qalinada loo sameeyay inay maadarada ahaayeen ilaahay ka baq dadkaagi baan muxuu aanu garab istaagnay waxa weeye runtii waxaan dareemayaa in la dulminayo wallahi marka la yiraahdo Somaliland baad ka soo horjeedaa ya akhi waxa weeye aragti siyaasadeed ma leeyahay laakiin kama soo horjeedo Axmed ugu dambeyn Cabdi Malik oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ma jira qorshe ku aadan inuu qabto xil siyaasadeed muxuu yahay hamigiisu wallahi waxaan anigu culayska saaray mid baan saaray waxaan isiri wax bedelka ninba meel wax ku bedela Soomaa ninna wax ku bedela markuu qabto xil qabto ayuu leeyahay bedelay nin waxa weeye xagga dacwada diinta oo daaciya noqonay waxbaan bedelay anigu waxa weeye waxaan isiri wanaagii waxa doo adeegsatay xaggii warbaahinta marka isbedelkaygu waxaan culayska saaray inaan wax ku bedelo warbaahinta inaan wax ku hagaajiyo warbaahinta marka runtii damac siyaasadeed yani marxaladan aan joogo runtii ugu jiro baan ku sheegay wallahi fursado badan baan helay aan awoodi karayo inaan meelo kala duwan inaan xil ka qabto xaqiiqatan yani waxa weeye dad badan baanu isu dhawaanay oo awoodi karayay in muhaayay meeshii aan jecelahay inay geeyaan sababtoo ah dadaal markaad ku bixisid wad helaysaa waxyaabo badan fursad badan baan helay
dad badan baanu isbarannay dad badan baanu isu dhowaanay waxaan awoodi karayaa inaan xilalba qabto laakiin xaqiiqatan muu hayn hammigaygu hammi xil inaan qabto sababtoo ah waxa weeye waxaan u arkay anigu inaan halkaa joogo warbaahinta ummadda kala hadlo ummadda ku hanuuniyo wixii wanaagsan aan halkaa kala hadlo fursadaan kala hadlo oo waxaaban dareemayaa in haddaan xil qabto inaan koomayo meel ku koomayo waa meel inaan ku koomayo xaqiiqatan xitaa mar baa soo ifbaxday yani waxa weeye xil baa loo magacaabaya intaan muqdisho joogay yani xaqiiqatan waa fiican tahay in xil la qabto oo xilku ceeb maaha waa karaamo in lagu maamuso oo ummadda Soomaaliyeed xil u qabatid laakiin aniga shaqadayda maaha oo waxaan u arkaa inaan halkaa inaan qabanay oo aan Soomaaliya oo dhan wax u qabto xaqiiqatan yani midna waxaan doonayaa reer Soomaaliland baan doonayaa inaan fahansiyo war markan leeyahay Soomaali baan wax u qabanay idinka kama soo horjeedo bimaana idinka baan idin qabanaya Soomaali kale aan qabanaya dadkii waxa weeye waxa loo baahan yahay ashkhas yani dadka ka dhaxaysa waa loo baahan yahay si dhakhtarka inuu dadkoo dhan daweeyo ka halkan joogan ka xaggan joogo soo daweeyo ku ciyaartooygu kana la soo yaar kana soo yaar abwaanku xaggan iyo xaggan tago ya kuwa heesa waa kuwa xaggan iyo xaggan taga marka waxa loo baahan yahay wariyayaal iyo shakhsiyaad ay dadku muxuu ilhaaminayo ay dadku ay haysta dad taageersan oo xaggan iyo xaggan bade taageero ka helaya laakiin aan meel qura ku xidhnayn waxaan jecelahay Soomaaliya oo dhan inaan muxuu u tago inaan Soomaaliya oo dhan la joogo yani runtii xil ma doonayo inaan meel ka qabto xilkayga waxa weeye waa magacaaban yahay waa barnaamijka warbaahineed ee aan ka shaqeeyo intaas ayaan ku soo afmeerayaa waraysi kooban oo aan la yeeshay Samafale Cabdimaalik Coldoon waxaana idiin soo jeedinayay anigoo Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwiisha waxaana u mahadcelinayaa saaxiibadaydii qaybta ka ahaa barnaamijka inuu qabsoomo ee Cabdiweli Cabdi Samed iyo Cabdirashiid tan iyo kulanti dambe nabadgeli